waxaan rabaa in aan ka hadlo hadal xalay toole uu ka soo yeeray Cabdicasiis lafta dhareen runtii hadalkaasi wuxuu nala noqday hadal yani cajiib ah oo aad iyo aad u yaab badan maxaa yeelay Cabdicasiis waxa uu rabaa laba dhacdo aan isku mid ahayn in uu yani isla mid dhigo sababtoo ah dhacdada ka dhacday koonfur galbeed xasuuqa ahayd waxay ahayd xasuuq lagu laayay maati 16 qofood ah iyo intaasoo dhaawaca xasuuqa Baydhabo ka dhacay waxa waaye xasuuq siyaasadeed xasuuq loo adeegsaday awood dawladeed ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo xasuuqa Baydhabo ka dhacay waa xasuuq siyaasadeed oo loo adeegsaday awood dawladeed iyadoo ay fuliyeen xasuuqaasi ciidamo ka tirsan dawladda iyo ciidamo Etoobiyaan ah sida baraha bulshada aad ku wada aragteenbo marka waxa yaab ah Cabdicasiis isagoo weligiis ka hadlin xasuuqii Baydhabo ka dhacay raba inuu yani eryaamo isku qariyo ama yani dadka yani reer koonfur galbeed in uu yani focuskooda u jeediyo meel kale uu u sameeyo marin habaabin ayuu wuxuu xalay toole soo qaatay in yani dad u dhashay koonfur galbeed lagu xasuuqay gaalkacyo okay waa run waa dhacday waa dhacday oo dhab waaye gaalkacyo in dad lagu xasuuqay waa dhacdo dhab oo dhacday balse Cabdicasiis dhacdada gaalkacyo shalay iyo daraad ma dhicin waxay saan u maleynaa waxay ahayd bishii March Cabdicasiis intaas muxuu ugu hadli waayay Cabdicasiis intaas muxuu ugu hadli waayay ilaa dhacdada gaalkacyo ka dhacday shalay iyo daraad midna ma ahayn Cabdicasiis muxuu uga hadli waayay isaga sheeganay inuu yahay madaxweynihii koonfur galbeed muxuu uga hadli waayay hadii hadalkii xalay toole uu ku hadlay uusan ahayn hadal farmaajo u soo dhiibay uusan ahayn muxuu markaa u hadli waayay oo u dhihi waayay gaalkacyo dad baa lagu xasuuqay muxuu u dhihi waayay muxuu statement u soo saari waayay muxuu u dacwoon waayay muxuu u hadli waayay Cabdicasiis hadii mataqaana uu damiir iyo damqasho leeyahay maanta markii farmaajo uu ku soo yani arintii yani xasuuqii Baydhabo oo golaha ammaanka ay ka soo saareen mataqaana baaritaankii golaha ammaanka markii uu soo baxay miya farmaajo la soo hadlay oo dhahay adna waxa tiraahdaa xasuuqa ka dhacay gaalkacyo laba dhacdo oo la isku qarin kara ma ahan Cabdicasiis xasuuqa Baydhabo ka dhacay hortaadu ahaa ayuu ku dhacay iyadoo lagu kufsanayo kursigii hoggaanka koonfur galbeed iyadoo lagu kufsanayo ayuu xasuuqaasi dhacay adiga sababtaadu u dhacay musharaxii kula tartamayeen Mukhtaar adiga daraada ayaa loo soo afduubay haddaba waxa waaye walaalow daraada waxa tiri adigoo hadlayo codkaagan haynaa nin kamid ah nin yani rayd ah ayaa waxa loo dilay nin askari ah u dilay wax ka yar $1 adiga afkaaga ka sheegaya haddaba waxa waaye ummad hadii yani hoggaankeedii uu noqdo la keensada u yahay adeega hadii uu noqdo hoggaankeeda ummadda meel walba lagu dilaa si walbaana loo dilaa adiga u sabab ah ummadan hoggaan ay u baahan tahay dhigahow la soo adeegsaday ee la keensaday adeegaha ah ummadda adiga baday wax walba oo ku dhaco ummadan adaa u horseeday marka waxaan ku leeyahay dhacdada ka dhacday gaalkacyo iyo tan Baydhabo isku mid ma ahan sababtoo ah xasuuqa ka dhacay Baydhabo waa xasuuq siyaasadeed oo awood dawladeed loo adeegsaday tan se ka dhacday gaalkacyo waa dhacdo meel walba ka dhacdo waa dhacdo mataqaana booryaaneed oo ka dhacda meel walba ka dhacda waaye teeda kale malaaqyadii iyo waxa tagay xildhibaanadii koonfur galbeed ka soo jeeday iyo malaaqyadoodii ayaa gaalkacyo tagay adiga weligaa kama aadan hadlin waxaad sugaysay amar farmaajo ayaad ka sugaysay ilaa uu ka dhaho hadal xalay toole ayaad coroday oo aad hadashay hadalkii aad hadashayne waxa uu noqday hadal yani ujeedadiisu tahay in aad dadka ku kicisid aad tiraahdid gaalkacyaal idinku xasuuqay aad ka jeedaysid indhahooda dadka
waxa adiga hoostaada lagu xasuuqaayo aad ka jeedisid ayaad ugu tala gashay taas umada yani waa ka baraarugsan tahay weyna ka dharagsan tahay laga yeeli maayo marka walaalo maxan adiga baba ku heysana Cabdicasiis lafta gareen adiga kuma heysana annaga adiga waxa tahay nin la keensaday annaga ma heysano annaga waxaan heysanaa ninkii adiga ku keensaday ee xilka ku badqala ku kufsaday kursiga ee haddana shacabkeeni awood dowladeed ku xasuuqay annaga kaasaan haysanaa waxaan leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo xasuuqii Baydhabo aad ka geysatay oo ciidamada Itoobiyaanka aad u adeegsatay waa qaan qoorta ku suran oo lagu qisaasi doono haddii xilka dacwadaadina waxay taalaa maxkamadda dambiyada adduunka dacwadaada taalaa caalamka oo dhan markhaati ka ah xasuuqii Baydhabo aad ka fulisay adigoo adeegsanaya awood dowladeed waatii ay soo saareen golaha ammaanka wax qarsoodi ah maahan maxamed cabdullaahi haddii aad xilka ka dhacdid iyo haddii aad haysidbo waxa lagu balan ah in mataqaana maxkamadda dambiyada adduunka lagu horkeeno haddii aad dhibatidne in mataqaana awlaadaada laga gudi doono sababtoo ah ilmihii aad waalidkood iyo walaalahood laysay inay weeraxayeen ma mogtahay ilmahagay ka gudayaan ilmihii aad mataqaana agoonsiisay aad agoontoomaysay ilmihii aad waalidiintooda xasuuqday aad Baydhabo ku xasuuqday ilmihii aad waalidiintooda Baydhabo ku xasuuqday inay weeraxayaan ma mogtahay farmaajo ilmahagay ka gudayaan waa balan ilaahay haddaad nooshahayna waa qaan qoorta ku suran oo aanan kaaga hari doonin waa igu wallaahi inaan lagaaga haraynin inta aad dunida ku nooshahay qaantaan qoortay ku suran tahay maatadii aad Baydhabo ku xasuuqday lagaaga hari maayo Mukhtaar heesmadiisana hadday wax ku tarayso hayso waxaan leenahay kumanaan Mukhtaar baan leenahay waxaan ku leeyahay kumanaan Mukhtaar baan leenahay xasuuqii maatada Baydhabo aad ku xasuuqday 13kii ilaa 16kii December ee 2018kii waxaan ku leeyahay waa qaan qoorta ku suran farmaajo waa lagu qasaasaa ifka iyo aakhira ilaahay hortiisa qasaasay ku tahay ayaa ku yaalo ifka intaad ku nooshahay kaaga hari mayno haddii aad dhibatidna caruurtii aad agoomaysay inay weeraxayaan ogow ay caruurtaada ka gudi doonaan wabillahi tawfiiq